qof walba oo islaam ah oo damiir leh waxaan ka codsanayaa inuu muuqaalka sheer gareeyo si uu u gaaro dhammaan dadka Soomaaliyeed daawadaha qaaliga ah oo daawo muuqaalkan oo ha ka gudbin sababtoo ah waxa lagu tumanayo ee la bahdilayo waa kitaabka jaamaca iyo diinteena islaamka haddii aad tahay qof islaam ah oo damiir naxaya isla markaana aan ogolayn in lagu ciyaaro diintiisa iyo sharafdiisa waxaan kaa codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad muuqaalka sheer gareysid si uu u gaaro dhammaan dadka Soomaaliyeed waxa bahdilayana waa gaalo ugu tala gashay inay adiga islaamka ku bahdilaan waxaan kaa codsanayaa haddii aad tahay qof islaam ah oo ka damqanaya sida loogu ciyaarayo diinta inaad muuqaalkan sheer gareysid si uu u gaaro dhammaan dadka Soomaaliyeed oo ay uga soo jawaab celiyaan waayo haddii la helo dad badan oo ka soo jawaab celiya waxay gaalada ogaan doonaan inay dadka islaamku yihiin dad aad u awood badan isla markaana aysan ogolayn in lagu ciyaaro diintooda oo la bahdilo maalin walba haddii aad tahay qof islaam ah oo daawaday muuqaalkan isla markaana sheer gareeyay aad iyo mahadsan tahay waxaan soo geli doonaa page-kan wax maqriye TV muuqaalo kale oo noocaani oo kale ah oo aan ayagana u baahannahay inaad nagu gacan siisid sidaad kuwan noogu gacan sidoo kale waana ku mahad celinaynaa waxaan kaa codsanaynaa inaad page-kan wax maqriye TV aad follow gareydid isla markaana aad like saartid si aynan ku dhaafin muuqaaladaas oo kale oo aad uga mid noqotid dadka diinta difaacay oo berri yawmil qiyaamo ajir badan heli doona aad ayaan kugu mahad celinaynaa haddii aad muuqaalka sheer gareysid ee uu dad badan gaaro sidoo kale waxaa sabab noqon kara inuu arko qofkii soo sameeyay muuqaalkan falcelin badan oo laga soo sameeyay iyo dhaleecayn badan oo ku socota isla markaana ay suurtagal tahay inuu iska daayo aadna sabab ugu noqoto adigii sheer gareeyay muuqaalka inuu dadkaas gaaro oo uu qofkaas iska joojiyo isla markaana aad diinta u gargaartay walaal miyaadan u gargaarayn diinta miyaadan sharaftaada u gargaarayn miyaanan ka celinayn gaalada sidatan ay u galayaan diinteenna waxaa hubaal ah haddii aynan ka celin oo aan ku fiirsanno inaan anaguna bahdilmi doono marka dambe waxaan kaa codsanayaa haddii aad tahay qof islaam oo ay daawanaya isla markaana ay dhibayso sida loogu ciyaarayo diintiisa iyo sharaftiisa inaad muuqaalka sheer gareysid oo aad ka fal celisid oo aad tiraahdid ilaahu ka qabo kuwa sidatan diinta ugu ciyaara waayo waxaa jirtay qiso hore oo ku dhacday naag gaal ah oo soo iibi jirtay kitaabada jaamaca si ay u bahdisho oo ay maalin kasta ugu tumato kadibna dad sidatan oo kale ah ayaa soo geliyay baraha bulshada isla markaana tusay dadka intiisa kale kadib markii ay dadka intiisa kale tuseen waxaa jiray in dad badan oo islaam ay habaareen oo ay dhaheen ilaahu qofta sidatan diintaada u galaya ka celi kadib markii ay naagta aragtay muuqaalkii way yaabtay oo way ku sii dhiiratay kadibna waxaa loo aqbalay habaarkii oo waxa ay noqotay daanyeer isla markaana naagtii waxaa soo geliyay baraha bulshada haddana dad kale oo la yaabna sida ay diinta islaamka ugu dheeldheeli jirtay iyo sida haatan iyada ay u dheelan tahay maadaama ay noqotay qof aan bini aadam ahayn oo ah daanyeer runtii dad badan oo ayaguna samay jiray sidaas oo kale oo ku ciyaari jiray diinta islaamka ayaa ka waantoomay oo gaalo ahay waayo waxay ka baqayeen in ay sidatan oo kale daanyeer noqdaan marka waxaan ka baryaynaa inaad muuqaalka gaarsiidaan dadka Soomaaliyeed si ay u dhahaan ilaahu qofkan diintaada ku ciyaaraya ilaahu ka qabo waayo haddii aan taas la dhihin waxaa imaan doonta in ay isaga sii wadaan oo ay ku ciyaaraan maalin walba diinteenna isla markaana taas waxay noo tahay safdil iyo bahdil aad u weyn oo lagula kacay diinta islaamka ah haddii aad muuqaalka daawatay sidoo kale aad sheer gareysay aad ayaad u mahadsan tahay waxaa jira muuqaalo kale oo noocaani oo kale ah oo aan ugu talagalnay inaan diinta islaamka ku difaacno oo aan soo geli doono page-kan wax maqriye TV waxaan kaa codsanaynaa inaad page-ka like saartid oo aad follow gareydid si ay ku dhaafin muuqaaladaasi oo aad noogala qayb qaadatid difaaca aan u hayno diinta